السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتنا كحرن kanaalkeena isha ciyaaraha kusoo dhawaada muuqaal cusub oo ka tirsan xubinteennii Euro 2020 oo aynu ku eegi doono ciyaartii xalay dhacday iyo kuwa maanta loo balansan yahay. habeenkii xalay ayaa koobkii dib u dhaca weyn ku yimid ee Euro 2020 lagu furay garoonka Stadio Olimpico. xulka Talyaaniga oo marti loo ahaa ayaa qaab ciyaareedkiisa wanaagsan sii waday kadib markii uu 3 gool oo qaybtii labaad ee ciyaarta yimid kaga adkaaday xulka Turkiga. goolashan ayaa yimid kadib markii uu gool iska dhaliyay daafaca Turkiga ee Demiral iyagoona Immobile iyo Insigne ay hawsha dhameystireen. maanta oo sabti ah waxaa toos u bilaabanaya koobka Euro 2020 iyadoo ay qorsheysan yihiin in ay dhacaan 3 ciyaarood. haddii aynu ku bilowno kulanka ugu horeeya oo galabta 4 galabnimo dhacaya waxa uu dhex maraya wadamada Wales iyo Switzerland oo ku wada jira group A. labadan xul ayaa markii ugu dambeeyay is arkay ku dhawaad 10 sano ka hor markaasi xulka Wales oo dhigiisa Switzerland diray 2 gool iyo waxba kulan ka tirsan isla reebkii loogu soo baxay koobka Euro 2012. goolasha maalintaasi waxa xulka Wales u kala dhaliyay Gareth Bale iyo Aaron Ramsey kuwaas oo koobkan la safan doona. dhanka Wales haddii aynu ku horeyno xulkan ayaa safi doona kaliya 8 ka mid ah squad-koodii 2016 oo waliba kuwa ka mid ah 8 sida Bale, Ramsey iyo Allen aanay ahayn kuwa heerkoodii hore jooga. si kastaba xaalku aadi sidii ay ku muujiyeen isla reebkii ay koobkan ugu soo baxayeen markaasi oo 5 ciyaarood oo xiriir ah aan laga guuleysan. Wales waliba awood aan la dhayrsan karin. xulka Dragonska waxa ay booska labaad ee group A kula halgami doonaan Turkiga iyo Switzerland maadaama groupka uu kula jiro xulka Talyaaniga oo la istaajin lahayd. waytaanka macalinkoodii Ryan Giggs qadiyad maxkamadeed ayaan si naba u ahayn wax wanaagsan hase ahaatee bedelkiisa Rob Page ayaa si wanaagsan u maareeyay marxaladii kala guur 7 bilood ee uu xilka hayay. Wales inta badan uma baxdo tartamada waaweyn hase ahaatee marka ay soo baxaan waxay kaga tagaan calaamad sida ay ku muujiyeen koobkii adduunka ee 1958 markaasi oo ay gaareen quarter finalka iyo Euro 2016 markaasi oo ay gaareen semi finalka. haddii aynu u eegno dhanka kale Switzerland xaalkeeda Euro waa ka duwan yahay kan Wales iyagoo marxaladda gruubyada lagu reebay 3 jeer halkii kii u dambeeyay ee 5 sano ka hor dhacayna ay ku hareen wareegga 16 markaasi oo ay rigoreyaal ku reebeen xulka Poland. xulkani ayaa ku kalsoon in ay gaari doonaan meeshoodii ugu wanaagsanay doorkani marka loo qaab ciyaareedkii ay muujiyeen muddadii u dambeysay. waxay tan iyo November la soo dhaafay guuleysteen 6 kulan oo xiriir ah. dhab ahaantii kaliya 12 wadan ayaa caalamka oo dhan ka sareeya dhanka kala sareynta wadamada iyadoona haddii ay mar kale ku hadhaan wareegga koowaad ee gurubyadu ay noqon doonto niyad jab aad u weyn. ugu dambeyn xulka Swiss oo markani haysta tiro xidiga hibar leh ayaa ay u suurtagali kartaa inuu taariikhdiisa ku saxo ku guuleysiga koobkan weyn. haddii aynu kulamada labadan xul dhex maray aynu eegno inkastoo ay Wales markii ugu dambeeyay ay labadan xul is arkeen guuleysteen haddana Switzerland ayaa adkaatay 5 ka mid ah 7 kulan ee abid dhex maray labadan xul. ciyaarta labaad ee caawa loo balansan yahay 7 habeenimo ayaa ah kulanka u dhaxeeya labada xul ee Scandinavian-ka ku yaala ee Denmark iyo Finland. Denmark ayaa baadigoob ugu jirtay isku muujinta ciyaartii ugu horeysay ee koobka Euro ku ciyaaran hoygooda. kabtanka xulkani Simon Jar ayaa warbaahinta intan u sheegay oo aanu dareemeynaa cadaadiska balse dhanka togan ayaanu dareemeynaa. dhanka kale Finland ayaa ciyaaraysa kulankoodii ugu horeeyay abid ee ka tirsan koobkani. waxaa sidoo kale rajadooda kor u sii qaadaya soo laabashada weeraryahan Timo Pukki iyo kabtan Tim Sparf. kabtan Sparf ayaa isna kulanka ka hor yiri waan ognahay in filashooyinkana laga qabaa ciyaartan ay aad u sareeyaan waxaana diyaar u nahay inaanu u dagaalanno. Denmark ayaan wax guul darro ah la kulmin dhammaan 22 ciyaarood ee gurigooda kula ciyaareen xulka Finland tan iyo markii ugu horeysay ay iswajeen labadan xul sanadkii 1949. asxaabtan ku xidhan muuqaalkan oo aynu kaga hadlaynay kulankii xalay dhex maray Talyaaniga iyo Turkiga iyo labada kulan ee caawa iyo galabta dhici doona intan ayuu ku eegay. sidoo kale ha ilmaamina caawa waxaanu soo saari doonaa falanqeyn ku saabsan kulanka caawa dhex mari doona Belgium iyo Ruushka. waanigoo idin la ismaqal dambe xiiso leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.